xiriir Maxamed bin Jaasim waxaa la soo xiriiray muddo dhowr bilood oo xiriirinay waxaan xiriirkaygu dhamaaday ilaa bishii saan filayo 8aad taasina oo uu igu wari waxaan doonayaa inaan ka wada shaqeyno hawlaha ka socda gudihiisa ka wadno iyo inqilaabka waxaan igu wari waxa weeyaan Masar ama Cumaan markaan u masqad baan deganaa Cumaan kadibna waxaan ku heshiinay markaa inaan soo dhaqsaha badan lagu kulano suurtagal noqoto Jaabir bin Xamid al-Marri waxa uu go'aansaday inuu kula kulmo Sheekh Khalifa bin Xamid dalka Talyaaniga caasimadiisa Roma taasi oo أركان قيادة الانقلاب في الخارج. magaalada Riyaad ee caasimada dalka Sacuudi Arabiya waxa isku raacay Jaabir bin Xamid al-Marri iyo sidoo kale Xamid bin Jaasim bin Xamid al-Sani kaasi oo ahaa mid kamid ah qabanqaabiyaasha inqilaabka bishii September 1996 kuwaasi oo u tagay si uu Jaabir u soo helo ogolaanshaha ka qayb noqoshada xubnaha inqilaabka fulinaya Jaabir markaad nooga waranto waqtigaasi waxa aad tagtay Sacuudiga iyada kulanteen si ay wada socoteen dabaantii waxaan wada soconay Sheekh Xamid bin Jaasim bin Xamid iyo sidoo kale xubnaha halka ugu tagnay oo kamid ah Amir Sultan bin Abdul Aziz oo hadda wasiirka difaaca iyo Cabdiraxmaan oo hadda hogaamiyaha ciidamada cirka ama taliya ciidamada cirka ee dalka Sacuudi Arabiya waxaan isku afgarnay xubin ka noqday inqilaabka sidii loo fulin lahaa aan ka qayb qaato warqadaan ka helnay qaybta sirdoonka Sacuudi Arabiya ee magaalada Taif ayaa waxay sheegaysaa in warqadan lagu socodsiiyay ku dhawaad 107 qof oo reer Qatar ah kuwaasi oo ka tirsanaa xubnihii sirdoonka saraakiishii fulinaysa inqilaabka iyo sidoo kale qaybo kale oo ka qayb qaadanaya inqilaabkii waqtigaasi taasi oo loo ogolaanay inay helaan baasaboorka dalka Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo ay jaar yihiin isla markaasina suurtagelinaysa inay si fudud u geli karaan dalkaasi dabahantii Bahrain iyo Sacuudiga warqadda ay isku direen oo Sheekh waxa diray dhanka Bahrain Sheekh Ciisa dhanka kalena waxa soo diray Amir Sultan oo waqtigana wasiirka difaaca ee dalka Sacuudi Arabiya si ay ugu suurtagelinayaan si fudud u geli karno dalkaasi Sacuudi Arabiya kadibna waxaanu tagnay Bahrain oo waxaan la kulanay Sheekh Xamid bin Ciisa iyo sidoo kale xubno kale oo aanu halkaasi wada hadal ku yeelanay muddo socday oo aanu isku afgaranay inay noqdeen iyagu Bahrain dhankooda ayaa ka soo geysay aad planteen Bahrain sidaan ku sheegay Sheekh Xamid waxa ka socday Sheekh Ciisa iyo Amir Sultan oo dhanka Sacuudiga naga raacay waxay dhamaantood ogolaanayeen inaan dalkooda soo gali karno xilligan u baahano si aan uga qayb qaadano fulinta inqilaabka waxaanay markii dambe ay hawshan noqotay sida aad ku wareesheen baydinku ama aad hesheen waraaqihii iyo qaraaladii la soo deersaday mid suurtagali weyday oo fashilantay goor dambe laakiin iyagu dhankooda ayna u garab taagnaayeen dhanka kale waxa hawshan ku soo biiray dalka sare oo loo yaqaano Nasir bin Xamid al-Marri kaasi oo ka howlgeliyay qolka fulinta hawshan loogu talagalay ee ku yaala dalka Bahrain isla markaasina ahaa hogaamiye sirdoon oo ka tirsan kooxda fulinaysa inqilaabka kaasi oo qayb lixaad leh ka qaatay arrintaasi dhanka kale dalka Sacuudiga waxa ay soo dirsadeen xubin loo yaqaano isla markaasina lagu magacaabo Sultan al-Ajmi kaasi oo ku caan baxay magaca naanaystiisa ee loo yaqaano Abul Haytham isla markaasina ka qayb galay hawsha fulinteeda markaa Bahrain bay noogu yimaadeen labadoodu mar dambe ogaadeen Sultan al-Ajmi la yiraahdo oo Abul Haytham lagu naanayso isla markaasina uu naga qayb galay hawshani oo qaybta sirdoonka ku qoran yahay dalka Sacuudiga laga soo diray dhanka kale dalka Sacuudiga waxa uu ahaa xubin aad u firfircoon oo ka qayb qaadanayay fulinta inqilaabkan iyo sidii hawshan u dhici lahayd waxaana uu sameeyay isku dabaridka qayb labaad oo ah qaybta sirdoonka iyo barta laga hogaaminayo hawshani isla markaasina ay degayaan saraakiishu taasi oo noqonaysa gudaha Qatar sida jirta goobta loo yaqaano Khubar ayaa waxay ka diyaariyeen goob laanu ka howlgalno oo hogaamiyaashu yimaadaan saraakiishu isugu yimaadaan kulan noqota sirdoonka isugu yimaadaan samaantaasina ay suurtagal noqoto in halka laga wada howlgali karo oo dalka Sacuudiga qayb ka ahaa sidii hawshan u dhici lahayd waxaana ahayd bridge oo dhaxay Bahrain iyo Qatar goobta marka loo eego xuduudkii ku dhaweey markii hawshu halka marayso dalka Sacuudiga iyo Bahrain gacanta lagu dhigay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hawshan waxa Sheekh Khalifa iyo sidoo kale Jaabir ay u wareegeen dhanka magaalada Qaahira ee dalka Masar iyagoo la kulmay Umar Suleymaan oo hogaamiyaha sirdoonka ee dalka Masar waqtigaasi ahaa sidoo hadli lahaayeen arrintani
markaan la kulnay Cumar Suleymaan waxa aanu kala hadalnay hawshani sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhanka Masar waxaan u baahanahay 2 nin oo ka tirsan ciidamadiina si ay noola hawlgalaan ciidanka qatar 2 nin oo ka tirsan ayaan u baahanahay si ay u suurta gasho inay nala shaqeeyaan oo aan tababarno 2 nin oo kala noqonaya booliska socda iyo xoog militariga oo aan u tababarno sirdoonka iyo sidii hawsha kala shaqeyn lahaayeen markii ay hawli halka marayso waxa soo baxay 2 xubnood ee ka qayb qaadanayay sirdoonka uu joogay dalka Qatar caasimadiisa Doha 2 nin oo kala ahaa Afiif Ahmed Afifi iyo sidoo kale Ahmed bin Hamid kuwaasi oo ka qayb qaadanayay hawshan inqilaabka sidii looga fulin lahaa dalka Qatar isla mar ahaantaasina waxa xiriyaasha Masar iyo Qatar dhanka kale waxa ay Masar ugu deeqday xubnaha reer Qatar ee fulinaya hawshan inqilaabka hubkii ay ka qayb qaadan lahaayeen hawshani hubku wuxuu noo soo gaadhay si istaba jooga isagoo xogaa kala dambeynayay dhanka Masar iyo dalka Bahrain ba hubka qayb ay ka ahaayeen wuxuuna inta badan hubku diyaarado noogu iman jiray diyaaradaha dalka Qatar gudihiisa lagu keenay qaarkood waxa lagu keenay doonyo sidoo kale hubka intiisa badan wuxuu naga soo gaadhay gudaha dalka Bahrain oo la soo marinay bariishka Bahrain iyo Qatar u dhaxeeya hubka ay nafisay Bahrain waxa kamid ahaa baabuur Forte loo yaqaano oo baabuurtan gaashaamana iyo sidoo kale qoryahan AK47 loo yaqaano ama Kalashnikovka hadba si ku yaqaanaan noocaas ka mid ah